بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasha iyo dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee daafaha dunida inagala socda. Halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana weli bartanka kaga jirnaa bishii barakeysaneed ee Ramadaan oo aan galnay 10keedii ugu dambeeyay. ciwaanka barnaamijkeenan maanta oo tixanaha waxa uu noqon doonaa maxay tahay ahmiyadda ay leedahay in masjidka lagu nagaado qaasadan 10ka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Bisha Ramadaan ma ahan mid la soo koobi karo khayraadkeeda iyo xasanaadka tirada badan ee uu Eebba Subxaanahu wa Tacaala u gaar yeelay. Waxaana ka mid ah ahmaasha khayrka badan ee looga faa'iideysan karo in masjidka lagu nagaado qaasadan 10ka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay ku jirto habeen ka khayr badan 10 bilood acmaashooda ama u dhiganto in ka badan 83 sano oo camal wanaagsan ah. Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu ahaa mid ku nagaada masjidka Ramadaanka waliba 10ka dambe ama 10ka habeen ee ugu dambeysa bisha barakeysan ee Ramadaan. Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay qofkii la dukada jamaaco salaada subax dabadeedna fariista meesha uu ku dukaday isagoo xusayo Allah ilaa ay qoraxdu ka soo baxdo dabadeedna dukada 2 rakaco wuxuu leeyahay ajar la-eg qof cimraystay cimro dhammaystiran. sidaa daraadeed waa inaan ka faa'iideysanaa waqtigaas yar ee ajirka weyn leh. ku nagaanshaha masjidka waxaa loola jeedaa cibaado darteed iyadoo loo go'ayo cibaadada dikriga iyo acmaal kasta oo ku gaarsiinayso alla u dhawaasho. waxaan Allah subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu na waafajiyo khayrkeeda iyo habeenka kunka bilood ka khayr badan ee laylatul qadri. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma aamin. halkani waa Somali Voice in Norway waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdullaahi Nuur Xasan Shiine.